بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا لا يعاون السيدو كلا وحكاهد لا دور موضوع يعني wax u dhigma sidii su'aalihii jawaabo kale baranbarada afkaaga ku jirto in badan waa ka soo hadlay muuqaalkan ka hor yaata waa kaga soo hadlay baranbaro cuntaa cunaysid ee ku dhex jirto mise biyo aad cabaysid gabadha waxay tiri biyo cabayay baranbaraa ku jirto haddayna ahayn axaadiis nafsi waswaas iyo adiga neceb aad u qabtid mise guriga baranbaro joogta hadday arrintaasan ahayn oo riidaas si dar alaad u aragtay baranbaradu waa digniin xasad iyo maxay ahayd waxyaabaha waxaan wanaagsaneen riida haddeen wanaagsaneen fasirkeeda ma fiicno laakiin haddaad ba aragtay rii ku aragtay adkaar isku hagaaji yacni adkaar sabaax adkaar almasaa dikriga afkaaga ku hay naftaadana ilaali wallahu yaclam mawduuca xiga waa mawduuc muhiim ah oo waxyarna dheer waxaa weeye haddaad ku riyootid aabbahaagii oo dhintay micnooyin aad u badan ayay leedahay waana riyo muhiim ah oo masajo badanna xambaarsan nambar 1 aabbahayoo dhintay waxay ka turjumaysaa in adi murugo iyo deeqada aad dareemaysid maadaama aabbaha uu yahay sanadka guriga nambar 2 aabbahayoo dhintay waxay noqon kartaa dembi dhaaf cimro mise xaj inuu rabbi dunuubtiisa dhaafayo waxay kaloo tilmaamaysaa aabbahayoo dhintay axaadiis nafs haddaa adiga aabbaha aad u jeceshahay ood aad ugu welweshid oo kale waxay kaloo noqon kartaa min ashayaatiin inuu shaydaan cabsi iyo welwelkaa gelinayo inuu aabbaha oo dhintay waxay siita u riyo kuugu dhahayo waxay kaloo tilmaamaysaa hadduu aabbaha uu xanuunsan yahay xanuun zaa'id uu xanuunsan yahay mise dhaqaatiirta qaar hadday yidhaahdaan xanuunkan lama daaweyn karo qofkan wuu dhimanaa taasoo kale way sababi kartaa inaad ku riyootid aabbaha oo dhimanayo li'aanuu adigu waxaad ogtaa caadi ahaan inuu aabbaha u noolaan doonin middaa way ka turjumi kartaa geerida waxay kaloo tilmaamaysaa geerida aabbahaaga isbeddel nololeed qofka hadduu diiqad iyo dhibaatooyin iyo xoolo la'aan waxaa ka sheeganaya isbeddel oo wanaagsan ka gudbid matala marxalad adag oo markaas aad ku sugan tahay li'aanu geerida sideedaba waa marxalad isbeddel weyn ku imaanayo qofkii noolaa adduunka joogay oo haddana daarta aakhiro u guuraayo waa nolol isbeddelayso sidaa darteed ayaa mufasiriinta qaarna waxay leeyihin waa nolol isbeddelayso wallahu yaclam gabadha masajkeeda wuu dheeryahay halkaana idiin soo saaray masajka li'aanu wax badan ayaa isku kee qaldan riyada dhexdeeda inay ka hadlayso iyo inay caadi ahaan waaqaca ay ka hadlayso ayaan xoogaa kala fahmi waayey laakiin koley maxay ahayd micnaha masajka uu soo gaaray inta awooddeeda ayaan fasiri doonaa isku dayi doonaa waxay tiri wiil xiriir naga dhexeeya familkiisa anigoo wacaayo asuubaysanahay waxyaaba sidaas oo kale ah iyo suuratal yaasiin aayad ka mid aad u akhrinayo muhiimadan ka horey suurata yaasiin aragtida suurata yaasiin aad u fiican tahay adoo riyo ku akhrinayo mise qayb ka mid ah mise aayad ka mid ah suurata yaasiin aragtideeda micnooyin aad u badan ay tilmaamaysaa oo ka mid ah ka guuleysi cadaabo waxaa kaloo ka mid ah hadaf aad lahayd inaad gaartid inaad gaari doontid waxaa kaloo ka mid ah aragtida suurata yaasiin u dhawaashaha rasuulka yacni rasuulka calayhi salaatu wassalaam iyo inaad jeceshahay iyo dadka u dhadhow asxaabta ahaado familkiisa ahaado inay ku jeclaanaan way tilmaamaysaa micnooyin aad u badan ay tilmaamaysaa insha allah waxaan jeclaanahay qofka markuu aayad ku riyoodo lambarka aayadda inuu isoo saaro waayo hadda ma xaqiijin karo aayadda ku horeysiyo aayadda 26aad mise aan dhehe 36 mise 35 tay tahay li'aanu waxaas ku qaldan almuhiim insha allah waxaan isku dayi doonaa inaan ka soo hadlo suuradaasoo dhammaystiran iyo aayadaheeda mar walba haddaad aayad riid ku aragtid micnaha aayaddaa ka turjumaysa ayay tilmaamaysaa in badanna janankii hore waa kasoo sheegay haddaad aayad beriyaad ku aragtid aayaddaa micnaheeda haddaa hataaf carabi aqoonin turjumo micnaha ayay riidaad mar walba ku hadlaysaa
midda labaad aan rabo inaan soo noqdo waxaa weeye riyada ay ku arkayso ninkii xiriirka la dhexeeyay familkiisa ee taleefonka raadinaysa ay waaysan tahay. haddayna axaadiisa nafsi ahayn istiqaaro badan ka tuko, yacni riyadaada ma xumo, laakiin haddana wax walba aad u dhaqaaqaysid khaasatan dhinaca guurka iyo xiriirka waxaa wanaagsan istiqaaro iyo duco badan inaad rabbi aad u tala saaratid, aad tabakashid, aad tirahdid arrintaanayda rabbi adaan kuu tala saartay garabkayga. aadaa umahadsantihiin walaalayaal. haddaad intaan ila soo gaarteen laag saara, sheer gareeya, sabskaraabna saara. aadaad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum.